Sturgis puts it over the top. Cork has made a great run, but they can run. It's kicked away by Nick Raimondo. xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA ayaa soo saartay qiimeynta bilaha ee xulalka qaramada adduunka bisha May 2016 ana kaalinta koowaad sii xajistay xulka qaranka Argentina oo kaalinta koowaad dib uga wareegay bishii hore Abriil. xulka qaranka Belgiumka ayaa isna kaalinta labaad ku fadhiya. xulka qaramada adduunka ayaa wax kulama ciyaarintan iyo bishii March 2016 markaas oo ay ciyaareen kulamo tartamo iyo saaxiibtinimo isugu jira, laakiin qiimeyntii bishii Abriil iyo bishan May ee xulka qaramada adduunka tobankooda ugu sareeya ayayna waxba iska bedelin. The ball has been laid off as well. This is end-to-end stuff. Giovinco is in the clear again. Oh, how about that? Just stop it. Argentina ayaa kaalinta koowaad ka maqnay tan iyo bishii November 2015 markaas oo xulka qaranka Belgiumka uu markii taariikhdiisa ugu horeysay uu kaalinta koowaad ka galay qiimeynta bilaha ah FIFA, laakiin Belgiumka ayaa hadda ku jira kaalinta labaad iyagoo hal boos dib uga dhacay. xulka qaranka Chile ayaa kaalinta saddexaad ku soo jira waana kaalintii ugu sareysay ay abid soo galaan, halka xulka qaranka England uu buuxiyay kaalinta tobnaad. xulka qaramada adduunka ugu sareeya xulka qaranka koobka adduunka haysta ee Jarmalka ayaa ku jira kaalinta shanaad, halka uu qiimeyntii hore kaga jiray isla kaalinta shanaad, waxaana booska afraad xidhay Colombia. Isbaanishka ayaa ku jirta kaalinta lixaad, halka Uruguay ay ku jirto kaalinta sagaalaad. It's Ozzy Alonso again in the playoffs, and Seattle are level. xulka qaranka Djibouti, Eritrea, Soomaaliya iyo Togo ayaa qiimeyntii ugu hooseeya, waxayna ku wada jiraan kaalinta 204 inkastoo ay ugu kala sareeyaan sida ay magacyadoodu u kala horeeyaan, waana sidani Djibouti, Eritrea, Soomaaliya, Togo.